بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. casharkeena waxaan ku fiirinaynaa qaacidooyinka asaaska ah ee barnaamijka Excel-ka. Xogta inoo diyaarsan waxaan ku fiirinaynaa inaynu sameyno totalka, average-ka iyo grade-ka. Waayahay halkaan baa ka bilaabaya marka qaacidadu wax ka bilaabata equal. Waxa ka bilaabi karaa sidoo kale calaamadda at. Laakiin anagu equal baynu isticmaalnaa. Equal sum bil baan furayaa. Totalku muxuu noqonayaa marka C2 maadooyinka ilaa F2 isticmaalaya. Marka waxa la leeyahay selka C2 reference isticmaalaya waxa weeye ilaa reference ilaa isticmaalaya F2 oo Englishka ah. Waayahay F2 aan ku xirayaa wuu sameeyay totalki average-ka ayaa haraya marka average-na waxa la leeyahay equal average bil baan furayaa. waxaan leeyahay average muxuu ka imaanayaa celcelisku waa isku darka maadooyinka oo loo qaybiyo 4. marka isku darka maadooyinka waa G2 ku jira. waxaan leeyahay G2 wixii ku jira maadooyinka tiradoodu imisa waa 4 u qaybi totalkiina way sameeysan yahay. qofkan wuxuu keenay 86.5 grade ka saaray marka condition buu baahan yahay equal baa ka bilaabaya qaacida kasta equal baa ka bilaabaya equal if condition isa ku xiraya average ku soo baxaya markaas waxa la leeyahay hadii H2 ay ka weyn tahay ama ay laag tahay 85 comma qofka maxaa siinaa ee waayahay if condition ka labaad hadii H2 ay ka weyn tahay ama ay laag tahay b wax ka dhigan 75 qofkan waxa uu daabacdaa b comma if baa leenahay bil baynu fureynaa hadii H2 ka weyn tahay ama laag tahay sida maxaa ka dhiganaa 65 qofkan c ugu tuur waayahay if bil fur hadii H2 ay ka weyn tahay ama ay laag tahay maxaa noo saaray dhidi soomahan dhida konton ma ka dhiganaa marka konton ila 65 qofkan waxa siisaa d comma if bracket baynu fureynaa hadii H2 ay ka yadhahay markaan baynu leenahay ama ay laag tahay haye 49.99 xitaa hadduu qofkaasi keeno comma qofkan cid oo daabaceynaa qaacidooyinku waa leeyihiin halkaas inagu dhameystirin qaacidooyinka oo dhan waxaan ilaa hadii H2 85 ilaa 100 waa A 75 ilaa 85 waa B 65 ilaa 75 waa C 50 ilaa 65 waa D 49.99 ilaa wixii ka hooseeyna waa A bracket marka xiro 1 2 3 4 5 qofka marka 86.5 baa hadda qofka oo reeyno qoran Axmed Jamaal Geel marka wuxuu ku guuleysanayaa A soo baxdo insha Allah bismillah ma sha Allah buu keenay qofkani saddexda qaacida marka aan koobiyo meesha hoose imaanaysa si hadhow automatically ayuu ku isku soo dejiyaan hoose u riixaysaa waayahay soo qabo average-kana asna hoose soo riix waayahay soo qabo grade-kana asna hoose soo riix grade markaas wada ii noqonaya sababtoo 49 iyo wixii ka hooseeya dhowr qof ku fiirinaya marka insha Allah taala waxaan ku bilaabayaa qofka labaad waxaan leeyahay tusaale ahaan oo kale Farax Nuur u tuur marka asaga 90 67 asaga automatic u xisaabinay qofkan waxa uu keenayo 70 89 qofkan b uu keenay 79 buu keenay marka 75 ilaa 85 waxay noqonaysaa b bay noqonaysaa waayahay qof kale aan galiyo waxaan ku tuurayaa qof saddexaad waxaan leeyahay Fatima Ahmed waxaan gelinayaa tusaale ahaan oo kale 80 waxaan gelinayaa 90 waxaan gelinayaa 40 waxaan gelinayaa 30 qofkan d uu keenay 64 buu marayaa